Axmed wuxuu ahaa wiil ka shaqeeya xarunta dalxiiska ee magaalada Boosaaso. Wuxuu ahaa mid xirfadiisa aad u tixgeliya isla markaasina hadal macaan. Wuxuu had iyo jeer ku dadaali jiray in uu goobta dalxiiska uu kor u qaado. Wuxuu halkaasi kula kulmay Maryan oo ahayd gabar shaqadoon ah. Maryan waxay ahayd gabar aad u qurux badan oo markaasi jecleyd inay ka shaqeyso goobaha dalxiiska. isla markaasina waxay aaminsaneyd inay ku wacan tahay soo dhaweynta dadka dalxiisayaasha ee goobaha dalxiiska yimaado. Laakiin nasiib darradu waxay dhacday kadib markii nin cilmi baare ah oo qadiimi ahaa oo taajir ahaa uu nolosheeda uu cadaadis u geliyay. Ninkaas oo jacayl u qabay gabadhaasi isla markaasina jeclaa in uu guursado nololna uu geliyo. Laakiin ayadu ma aysan doonayn waqtigaas guur inay gasho oo waxay jecleed in ay shaqaysato oo nolosheeda ay hormariso, guurkana ay dib u dhigto. Waxayna mar walba ku fikiri jirtay in ay guursato nin ay isfahmeen dabeecad ahaan iskana heleen inay guursato. Arrintu waxay sidaasi ahaataba maalinba maalinta ka dambeysa. Axmed wuxuu mar walba ku dadaali jiray sidii uu shaqadeeda uu garab ugu siin lahaa, horumar uu gaarsiin lahaa gabadhaasi. Waxay arrintu sidaasi ahaato maalintii dambe waxaa ka war helay arrinteedii ninkii taajirka ahaa. Ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Cumar wuxuu ahaa nin tixgelin ku leh, xushmad ku leh bulshada gudaheeda, dadkuna ay aad u xushmeeyaan. Wuu soo dhaqaaqay wuxuuna yimid xaruntii dalxiiska isla markaasina xabsi ayuu u dhaadhiciyay Axmed asagoo u eegin waxa meesha ka socda. Maadaama uu horey u soo maqlay in gabadhii Maryan ahayd ee xarunta dalxiiska shaqo ka heshay isla markaasina meeshaas ay kula kulantay wiil xushmeeya oo gacan siiya oo garab siiya. Asagana wuxuu u qaatay in labadooda uu xiriir ka dhaxeeyo. Sidaas daraadeed ayuu Axmed xabsiga ugu xiray. Muddo yar kadib markii Axmed xabsiga laga soo daayay ayuu Maryan jacayl u qaaday, jacayl oo marka hore u qabin. Marka hore Axmed wuxuu ku fikri jiray in gabadhan uu garab iska siiyo, gabar Soomaaliyeed ay tahay, shaqada uu garab ku siiyo, hamigeeda iyo waxay jeceshahay uu hore u qaado. Laakiin maadaama dhibaato darteed loogu geystay ayuu jacayl u qaaday. Halkaasi ayay Axmed iyo Maryan ay isku jeclaadeen. Jacaylkooda wuxuu kor u socdaba. Maalintii dambe waxay go'aansadeen inay xarunta dalxiiska shaqada ay iska dhaafaan ayagoo ka cabsanaya cilmi baaraha taajirka ah inuu dhibaato kale u geysto. Magaaladiina waa ay ka guureen oo magaaladii nolosheeda, shaqadoodii waxay ka doorteen jacaylkooda inay xoojiyaan oo meel tuulo ah ay ku noolaadaan. Qisadani maanta idinkugu talagalnay waa naga intaa.